dhiiggii badnaa ee la daadiyey dhaawicii badnaa xaaladoodii waxba lagama qabanin iyadoo halkii bay taallaa waxaan caddaynayaa dhallinyarada magaaladu inaanay qaswadayaal ahayn waayo iyadoo xadhkaha goosatay iyadoo magaalada aan ciida ka shaqaynayn iyadoo aan oday shaqaynayn iyadoon mas-uul shaqaynayn ay magaaladoo dhanba qabsadeen ayay dhallinyarada magaalada aan ku nidhi dareera way kala dareen walba gurigaaga tago gurigiisuu tegey hadday qaswadayaal yihiin maalinta amniga magaaladii kala dambaynta may soo celiyeen waxaanu idin leenahay shalay kuwii wasiirada ahaa ee dadka dhegaysan waayey talo ummadda isku keeni waaye la soo dirayey ee halkan imanayey waa kii magaalada laga xarimay waa kii hudheelka shabeeglayaasha lagaga qaaday magaalada laga dhoofiyey waa tii habeenka madow laydinka tariibiyey haddaad fadhiisan weydaan oo aad dadka ixtiraami weydaan oo aad dhegaysan weydaan raggii halkii bay joogaan dhallinyaradana waxaan leeyahay waryaadeen yaa waxba laydinkala qayqaybin 34 sannadood baa kala qaybsanaydeen 34 sannadood baad jifo laydinka dhigay shaqaalaad ku weydeen sabab loo yidhaahdo jabhadaad isku difaacdaan samaysta iyagoo cashuurtii bixinaya waxaan u aragnaa xaaraan baan u aragnaa ka kuu damqanayaa lagu odhanaya cayo kaasaad caysaa saad ka tuuggaa daba gelaysaa shaqaalo kuuma soo qaadi karo xaqaad leedahay kama hadli karo adoo xidhan kuuma doodi karayo waxaanu soo jeedinaynaa 4 iminka haddii berriya saan dambe lagu soo dayn waaye namada xidhan waxaan dhammaan iskugu yeedhaynaa shacbigu inay soo baxaan ilaahay baa maadis kale maanta waa 3 bishii January 2026 وانا مالين سبتيا marka hore waxaan salaamayaa warbaahinta madaxa banaan inta marka laga yimaado waa aniga iyo gudoomiyihii maadartay xildhibaan maxamed xuseen maydhane muddo aan ku sugnayn gobolka kadib xaaladii adkaa ee soo waajahay gobolka oo ahaa kuwa maadartay si ku talagala maadartay looga sameeyay gobolka taasoo maadartay dhiig badan iyo dhaawac badan iyo khasaare badan oo maaliyadeed ba maadartay gobolka u geysatay baan rabnay wax ka nidhaahno marka ugu horeysa waxaanu hambalyo u diraynaa guud ahaan shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland markii ugu horeysay muddo 4 sannadood maadartay aqoonsigii dalkan uu raadinayay oo madaxa la baxay oo dalkii ugu horeeyay uu aqoonsaday taasi oo tusmo u maadartay riyadii uu dalkani uu ku taamayay hambalyo ayaan leeyahay qodobka talooyin iyo fikrado muhiim ah ayaanu ka soo jeedin doonaa waxaanan soo jeedin doonaa fikradaha nusleenahay uu ku dhameystirmi doonaa inta markaan ka imaado magaaladu waa amaan xaaladeeduna way degan tahay laakiin amaan lagu kalsoonaan karo maaha magaaladu amaankeedu because waxa yaala oo aan waxba laga qabanin arrimihii soo raagay ee soo jiitamay muddada dheer ee arrimahaasi keenay in carada bulshadu halka gaadho wali halkooga bay taagan tahay sidoo kale dhiiggii badnaa ee la daadiyey dhaawicii badnaa xaaladoodii waxba lagama qabanin iyadoo halkii bay taallaa intaas waxaa lagu sii daray in la xidhxidho dhallinyaradii magaalada iyo qaar ka mida warbaahinta gobolka sidoo kalena loo soo jeediyo goodi iyo cagajuglayn cusub oo dhalatay 2026 marka ugu horeysa waxaanu ku baaqaynaa in dhallinyarada xidhan iyo wariyayaasha xorriyaddooda loo soo celiyo haray loobina bini'aadanku factabiru yaa ulil absaar baa layidho maalintii dhaweytoole qoladiidii ka horreysay dadka xidhi jirtay ee maadaragtay cawaadiinta ahaa ee aadka u cadhoon jiray saldhiggaa lagu xidhay anaa ugu imiday saldhigga 3 galabnimo iyagoo saldhigga ku xaraysan oo 10 saacadood qaarkood aan kaadi tagin oo suuliga gali karin baan ugu imiday saldhigga dhexdiisa oo ay ku jireen qaar kamid ah wasiirada xukuumadda oo ay ku jireen qaar kamid ah madaxda kale dawladda oo ay ku jireen gudoomiyihii gobolka iyo taliyaashii qaybo iyo jananaba ay ku jireen baan ugu imiday oo suuliga gaari kari waayay dadkii maalinta halka qolada ku xareeyay magaalada way joogaan way nool yihiin laakiin waxay ku kala dareereen maalintii horena
raggayaga halkan taagan iyo odayaasha midakarka ee magaalada qaar ka mid a ayaa baryo ku kala dareeriyay walaalayaal xooggiin iyo xeeladiinna kumay kala tegin maantana wax allo wax aad ka qaban kartaan oo ahayn inaan war dareero nabadgelyada ilaaliya aan ahayn oo aad idinkuna aad dheertii kuwii hore ma jirtay waxaan idin leenahay war faraha ka soo qaadan leenahay faraha ka soo qaada oo joojiya dulmiga hore dulmi ugu darinaa waxaan rabaa inaan dhalinyaradan yar ka hadlo dhalinyarada magaaladu ma qaswadayaal baa mise qaswadayaal maaha waxaan caddaynayaa dhalinyarada magaaladu inaanay qaswadayaal ahayn waayo iyadoo xadhkaha goosatay iyadoo magaalada aan ciida ka shaqaynayn iyadoo aan oday shaqaynayn iyadoon mas-uul shaqaynayn ay magaaladoo dhanba qabsadeen ayay dhalinyarada magaalada aan ku nidhi dareera way kala dareen walba gurigaaga tago gurigiisuu tegey hadday qaswadayaal yihiin maalinta amniga magaaladii kala dambaynta may soo celiyeen waa nimanka dhalinyaradu lacagtii ay kaantaroolada ka qaadeen ee ay dad ayna qof ku dilin ee aanay qof kaantarool waxba ku yeelin lacagtii intay ururiyeen ayay dadkii la dhaawacay dhakhtarka ugu geeyeen ma kuwaasaa qaswadayaala waa beentiin baan leyna qaswadayaal maaha sidoo kale ilaa imika qof haye ma jiro hal khasaare oo ay dhalinyaradaasi u geysteen oo cad oo ay qof u geysteen oo ay hooye u geysteen oo ay aabbo u geysteen laakiin waxaa la hayaa inay yihiin dad xaqooga doonayey dad diidaya dulmiga dad diidayey in indhaha faraha laga geliyo oo ah dadka haddii la sharfi waayo dhaqankooga mudantooda iyo maxaa la yidhahdaa haldoorkooga dee inay sidaasoo kale u cadhoodaan wax waajib ku aweeyaan waana wixii laydinka filayey sidaa darteed dhalinyarada annagaa u maraga laakiin ragga magaalada qasaya waa la yaqaanaa waa kuwa doonaya inay masiirka ummadda iyagu ay kuraaso ku helaan waa kuwa doonaya inay masiirka ummadda ay lacag ku helaan waa kuwa doonaya in telefoonka madaxweynuhu ka qabto inay ku helaan dhiigga dhalinyarada weeyaan isagoo madaxweynuhu annaga albaabkiisa habeen iyo maalina gelino ayaanu dadka ummaddan isku sheegi karnaa iyo danahooga iyo dhiigooga la daadinayo qaarna maalintaasay doonaan in telefoonka madaxweynaha ama wasiir la soo hadlo ama ay cidi barido waxaanu idin leenahay shalay kuwii wasiirada ahaa ee dadka dhegaysan waaye talo ummadda isku keeni waaye lasoo dirayey ee halkan imanayey waa kii magaalada laga xarimay waa kii hudheelka shabeeglayaasha lagaga qaaday magaalada laga dhoofiyey waa tii habeenka madow laydinka taariibiyey haddaad fadhiisan weydaan oo aad dadka ixtiraami weydaan oo aad dhegaysan weydaan raggii halkii bay joogaan dhalinyaradana waxaan leeyahay waryaadeen yaa waxba laydinkala qayqaybin 34 sannadood baa kala qaybsanaydeen 34 sannadood baad jifo laydinka dhigay shaqaalaad ku weydeen shaqaalanimaa laydiin ogolaan waaye kun shaqaalaabaa maanta ka soo baxay shaqaalihii dawladda la kala hufay kumaa la shaqaalaysiiyey war ninna yaanu been idiin sheegin wallahi inaan reer hebel meel idin geynayn oo jifo yar idin geynayn dadkan reewdalna waxaan leeyahay muddo badan baad waxaad tijaabiseen kala qaybsanaante bal maanta midnida tijaabiyo ku adkaystaan idinleho kuwa doqmaha albaabada ka xita intaasaan qodobkaa kaga gudbayaa waxaan u gudbayaa qodobka kale waxa weeye dagaal baa laga horiyey xeebta dadka reer awdal waa cashuur bixiyayaal waa cashuur bixiyaal labaadee ugu weyn dalka sabab loo yidhaahdo jabhadaad isku difaacdaan samaysta iyagoo cashuurtii bixinaya waxaanu aragnaa xaaraan baanu aragnaa xukuumaddu intaasoo cisho waxaanu u dibdhigaynay intaasoo cisho waxaanu sugaynay inay waajibkeedu gudato aniga odayga halkan jooga maxamed muddaanu sugnaa markaanu muddo sugno eanu la talino ee talooyinka la qaadan waaye loo qaatay in guulwadayaasha iyo kuwa maad aragtay aan waxba tari karin ay u qaataan inay kuwaas wax tarayaan kabacdi baanu dadka la talinaye waxa weeye si bareera ciidamo dibadda ka soo galay loogu soo sii daayay gobolka si bareera laba kun ama 3 kun oo nin magaalada loogu soo sii daayay oon dalkan u dhalan oo dadkii deegaanka wada deganaaye gobolkaas salel iyo awdal wada deganaa ee deegaanka ku ahaa meel isku diliyaan anagu ma hayno laakiin dad dibadda laga soo daayay baa jooga ciidankii militariga dadkana cashuurtiisa bixinaya halkuu maraan weydiinaynaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa laba arrimood bay noqonaysaa madaxweyne inaad difaacdo ciidankood dalka ka saarto wixii dal ka yimiday dadka gobolka wada deganna hadday xaalad nabadgelya ay dhex taallo odayaal baanu leenahay golo guurti baanu leenahay caqli iyo maskax lagu kala saaraynu lahayn halkaasaa loo marayaa laakiin laba cashuurood bixiyo isna difaac cashuurtanaan kaa qaado ciidankiina xeryaha ku jiro madaxweyne waxaasi wax lagaa yeeliya maaha kaana intaasaan kaga tegayaa waxaan arkay hadalna waxaan ka odhanayaa xasan sheekh maxamuud leedha xabar buu fadhiyaa isagu waxa weeye ninkaasi iyo kooxdiisa halkaa fadhiday dadka awdal jooga doqma u yaqaanaan maalinta hargeysa
ama somalilan uu wax u soo kordhan ayuu wuxuu idhahdaa ayuu awdal buu raadiyaa iyadood ogtihiin 5 kursi ama 6 kursi dirku ku haysto gobolada koonfureed kooxda halka xasan ku haysto wasiirka maaliyadda iyo gudoomiyaha banka dhexe bay haysan jireen Gadabursigu labadiina uu ka qaaday ma kala maalinta dambe wuxuu idhahdaa awdal baa la raadinaya iyo awdal baa ma aragtay la doonaya isagoo og inuu kala diray intii halka uu ku hayay isagoo og inuu ma aragtay aanu u sadsoorin isagoo maalintii dhiigan uu dhacay iyo maalintii dibta la geystay aan juuq iyo jabaq midna ka oranin inuu maalinta uu dantiisa uu rabo inuu gaaro inuu soo ma aragtay dad gaara iyo shakhsiyaad gaara iyo arrimo gaara uu ma aragtay isku dayo in laga hadlo oo uu doono inuu Soomaaliland gudaheega soo farageliyo isagana waxaan leenahay xasano arrintaasi kuma soconaysa raali naga haw qodob waxa ka dhigay qurba joogta dalkani wuxuu ku dhisan yahay kaalmada qurba joogta reer awdalna sidoo kale bay ka mid yihiin nimanka qurba joogta annagu waxaan ognahay meeshay doonaan baa joogaan waa dad mudaharaadsan weeyaan waxay ka mudaharaadsan yihiin dalkan in la wada yeesho dadkii doonayay weeyaan reer awdal meel kastoo joogaan madaxweynaha iyo tolka uu ka soo jeedo ee aan dalka wada leenahay waxaan leeyahay walaalayaal اعترافكي مدحو لبح مررك قار اعتراف كلفتي سا امتحان كون نقد دولدا قار ومدا قارو او بابيا مردان عدالد iyo sinaan iyo wanaag aan lagu dhaqaynin annaga dadkayagu waa dad mudaharaadsan meel kastoo joogaan waxay u mudaharaadsan yihiin cadaalad bay raadinayaan saami qaybsi bay raadinayaan awood qaybsi bay raadinayaan janannada wasiirka maaliyadda kuwa amniga kuwa dhaqaalaha ee aad ka qadisay reer awdal cadadoodu waxay laga yaabaa inay gaadho inaanan la kadbanin kadabaan la odhanin inaanan kalsooni lagu wada joogin inaanan nabadgelyo lagu wada joogin dalka aqoonsiga madaxa la baxay sida kaliya waxaanu la hadlaynaa madax dhaqameedka deegaanka waxaanu la hadlaynaa in badan waanu ka hadalnay adigoo kaliya madaxweyne kaala hadlayna horta abaanu ka hadlaynay bal lama cadna waad ka qaaday mudana madaxweyne waxaanu ku leenahay dadkaad soo dirdiraysa ama kuwa ku odhanaya annaga awdal hayna waxa la waxayaan ma jirto waa kii warafka lagaga saaray sida kaliya lagu wada joogi karaa waxa weeyaan inaad qalinkaagana cadaalad ka samayso beeraha Soomaaliland dib u wada fadhiiso oo ay ku soo hareen dadka awdal iyo dadka intay adduunyadu ogtahay adna aad ogtahay dadka gobolka joogaana ay og yihiin ayaa laga rabaa inaad wada fadhiisiso oo dalka la wada yeesho oo cadaalad lagu wada yeesho qof kasto reer awdal ninka inta wax ka duwan doonaya oo iska celiya 2026 ina adoomo dib u noqotaan ina kolba ina idinku shaqo tago in kuwa aan shalay tacsiid idin dirin in kuwa shalay aan magaalada joogi karin in kuwa aan shalay idin iman karayno wax idin oran karaynin inay maanta idin taliyaan doqoniima idinku tahay halkii baanu idin fadhinaa odayaasha halkii bay idin fadhiyaan midakirkii kala qayb idin fadhiyaa kaalaya kuwaana hadaba gelin iska ilaaliyaan leh intaana qodobkaas kaga tagayaa gudoomiyahan uga baxayaa waxa weeye habeen dhawad gudoomiyaha gobolka hadla wuxuu yiri waxa la ii fasaxay buuri awoodda la ii fasaxay oo ilaan dadka xidho oo aan caburiya la ii fasaxay buuri isagoo qadaalkan loogu sameeyo terrorist yaa ku fasaxan leen cidda ku fasaxay Cabdishii Xasan Taano waayaan isaga weydiinayna dadka lagu fasaxay laagiyay yihiin yaad ka xoog weyn toodaad xiraysaa oo dilaysaa waayo ciddaas ba weydiinna gudoomiyaha cidda ku fasaxday ee dadka dhiigooga ku fasaxday cadday baan leenahay isagana halkii aad ka dooni lahayd dhiigii iyo dhaawicii dhalinyarada loo geystay inaad tiraahdo kuwa cusub baa la fasaxay adigoo dheer garadkii bulshada lagu tirinayay adigana ceeb bay kugu tahay gudoomiye shalay waxaad kamid ahayd team list dheer oo cabasho u geeyay madaxweynaha maanta markuu musharax ahaa deedna maalintaa waxaad tiri dadka gobolka maanta xaqa ka hadlaya meel kale laga hagayaay adiga maalintaa yaa ka hagayay meel kale yaa idin soo diray maanan ummadan xaqeega una idaan doonaynin gudoomiye dadku halkii bay taagayin maalintii aad joogtay xaqeed maalintaa doonaysa bay doonayaan annaguna sidii aanu maalintaa ku garab taagnay baanu kuwa maanta doonayeen oo hor taagan oo garab taaganay inta wax ka badan miyaad haysaa intaana gudoomiyaha leh sidoo kale waxa leeyahay haddii adiga iyo qaar kale aad xilal ku hesheen maalmihii dhawey toolo dhibkii dhacay qaar kalena ay xilal sugayaan ma masiirka ummadda hala tuuraa ma wax raadintii hala tuuraa ma waxa weeyaan waa la idin leynayaa iyadoon ciddii hore xaaladii hore waxba laga qaban baad gudoomiye ku talinaysaa adigana waxaan ku leenahay intaasi kaama soconayso waxaan ognahay in magaalada lagu dilay 20 qof
laba boqol iyo konton kalena lagu dhaawacay muddo 4 saacadood ka yar dagaal socday 24 saacadood oo qoryo hubaysan la iskaga hor imanayay intaa laguma dilin maalin kaliyaata ilaa maantana jid loo raaco dadkaasi lama oga waxa weeyaan waa shahiido si sharaf loo dhinteen qof aasi karaan xaqoogi ma jiro wixii ay u dhinteenna shalayna anaga u taagnano waa in dalkan la wada yeesho waa in dalkan uu nabad ahaado waa in dalkan cadaalad loo helo ba u dhinteen maantana kuwa kale u dhimanayo noo kow ka nahay baa jira walaalayaal yaan laydin niyad jabin yaan laydin kala qoqobin yaan dib la isku kiin celin idinka fadhiga fadhiga noqda haddii ay joogsan waayaanna waan soo baxaynaa waan la hadlaynaa haddii middakarka magaalada jooga gabagabadii oo ganacsato leh oo madax leh oo xildhibaano leh oo dhaqan leh haddaan u talin weynay nimadeennu magaaladanay baabiinayaan waanad ogaan doontaan shalay bayna maqleen waxaan ku nidhi war talada noo daaya war annaga noo daayo annagaa middakarkiyo gelayna cid gashana ma jirto ilaa maanta hogaamis waxaanu ka codsanaynaa madaxdaasoo dhan hawsha loo dhiibay oo ay ugu mudnaayeen xildhibaanada golaha wakiilada iyo odayaasha dhaqanku inay hawshaasi ay u istaagaan oo la dedejiyo sidii hawshaa loo geli lahaa oo inan la soo diray oo wasiirayo wax la jirayo aan go'aanayo miis madaxweyne midna gaari karin aynaa waxba weydiinin odayaashii dhaqanka halkay inoogu yimiday ee ay suldaan maxamuud iyo hogaaminayeen caddo guda iyo raggaasi ayaguna raggoogii doonaan inaguna raggeeni aanu surursanno waxaan kaga baxayaa maalinta halkaa laygu soo dhaweeyey ayaa halka ka tegey salaadiin sharaf loo waan xasuusinayaa suldaan maxamuud guuleed maxamuud xaaji xuseenkii maalintii loo suldaanka halkan marayey guddoomiyaha guddiga habar jecel rag calankaasaan hudheer habeen casho ugu sameeyo waxaan ku udhi war dadkii anigay soo dhaweeyey jacayl gaara imay qabine xaqoogii bay doonayeen awdalna arrin adag baa ka soo socoto inamadan halkaa ku soo arkay war maanta kadib lama celin karee isbaahaysiga shalay heshiiska galay qodob baa ku jiray awdal cadaaladdeeda hala sugaa siyaasiyiinta iyo madaxda halkan joogana maalmo badan bay farriintaa nagaga baxeen war walaalayaal dhaqankii baa tihiin habar jecloy odayaasha waddanka kale hagaajiyaa tihiine arrinkaasi wax nagala qabta ilaaha karaameeye maxamuud guuleed wuxuu idhi arrinkaasi garowshiyuu leeyahay arrinka ceelaf weyn baan iminka ku jirnaaye maalintaan dhammayno arrinkaasaan u jeesanaynaa salaadiintii sharafta badnaa waxaa leeyahay arrintii way taagan tahay maanta dalkeenniina masiirkiisii madaxuu la baxo aqoonsigii baan helnay war walaalayaal soo fadhiista baaqigaydi ka dhimanna soo raadsada oo aynu arrintaa ka wada hadalno xal kala male oo ka ahayn din baa igu idhi war reer awdal maalin walba ma somaliland bay noqdaan buu idhi qolooyin meelaha lasoo taago oo calanka loo dhiibo war dadkani 1993 iyo 1991 bay somaliland hayaan ceebta ha laga daayo ceebta ha laga daayo maalin walba odayaal iyo dhallinyareenta meel lasoo taaga la odhanayo somaliland baan nahay oo ma maantaad somaliland noqotay soodigii 19 dadkii go'ay ka mid ah war odayaasha ceebta ha laga daayo fadeexadda ha laga daayan leh sidoo kale dhallinyarada maanta calaamad baan siinaya waxaan leeyahay mar kasta taariikhda laba nin baa ku jira ninka hodaya iyo nin haybinaya waxa adiga kaa maqan iyo haybadaada ilaalinaya ku jira labadaas si fiican baan idinku kala sheegayaaye waxaanad ku kala garan doontaan mana joogaan meel idinka fog dadkanay ku dhex jiraan dibadda kama yimaadaan idinkaydi ka dhasheen laakiin waxaad ku kala garanaysaan qola maalinta aad xaqiinna ka hadlaysaan ma aragtaan qolo maalinta laydi dhibo ma aragtaan qolo maalinta dhiiggiinu daadanayo idinkama damqadaan laakiin marka dhiiggiinu daato ayay dhiiggiina ku shaqo tegaan calamaan baa la huyaa waxa la maanta anagu kuwaas waa kuwa calanka waa kuwa baabiinaya weeyaan dhiiggiina ilaa iyo 2000 ayaa rag la leynayay oo mudaharaad lagu leynayay qaar baa jidka lagu gowracay qaar baa halkaa la mariyey 30 suldaan oo reer sheekh isxaaq baa yimid maalintii raggii jidka lagu gowracay halka maanta annaga nasiya yidhaahdeen raggii halkaa joogay ee dadka gowracayna annagaa tiirka ku soo taagayna ilaahay baan idinku dhaariyey ma ku soo taageen kumay soo taagin maalintii halkaa ka noqdeen idinkuna waad seexateen oo sidii caadiga ahayd baa barafka laydinku shubay maantana 30 suldaan baa inoo yimiday miyaad aragteen iyagoo qadiyadii ka hadlaya weli miyaad aragteen war waxaan idin leeyahay ninka kuu hoolhoolay iyo ninka kuu xirxeeriya labadaa waa inaad kala garataan ragga 30kii sannadoodba dhibaatadan qaybta ka haynaga inaga soo jeeda ee magacyada leh ee kuraasida waaweyn fuulay ee aan waxba soo kordhin hadday ilmaadeeradaa yihiin haddaad weli agtaada sharaf ku leeyihiin hadday weli koofiyada kuu sitaan hadday weli hebel iyo madaxweyne hebel yihiin dee adigu goormaad miskiin goormaad adigu xisaabtamaysaa goormaad qof noqonaysaa
oo lagu oranayo ka ku damqanaya lagu oranayo ayo kaasad haysa saad ka tuuga daba galaysa shaqaale kuma soo qaadi karo xaqad leedahay kama hadli karo adoo xiran kuma doodi karayo waxaanu soo jeedinaa 4 hadii bariya saad daba lagu soo deen waayay namada xiran waxaan dhammaan isku yeerinaa shacbigu inay soo baxaan oo idinku nabadgelyada ilaalinaya oo xaqiina difaacataan baan isku yeerinaa wabillahi tawfiiq